Soomaaliya oo loo diiday inay ka qayb gasho kulamada golaha amniga ee qaramada midoobay kadib markii ay bixin weysay qaaraanka golaha. inta aynu u gelin faahfaahinta warbixinteena fadlan like iyo follow saar page-kan sina share garee warbixinta. 5 wadan oo ay ku jirto Soomaaliya ayaa loo diiday inay safiiradoodu ka qayb galaan fadhiyada golaha ammaanka ee qaramada midoobay sabab la xiriira inay bixin waayeen lacagta qoondada ah ee loogu talagalay inay bixiyaan wadamada kuraasta kule golaha amniga ee qaramada midoobay oo ah lacag qaaraan ahaan looga qaado wadamadaasi dalkii bixin waayana laga hor istaago in uu ka qayb galo kulamada ama fadhiyada golaha amniga ee qaramada midoobay oo ah golo loo dhan yahay. safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay ayaa loo diiday in uu ka qayb galo fadhiyada golaha xilli uu jiro kulan gaar ah oo golaha amniga ee qaramada midoobay kaga arinsanayo arrimaha Soomaaliya siiba doorashooyinka Soomaaliya ee daba dheeraaday muddada dheerna soo jiitamayay. Abuukar Baalle oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya golaha amniga ee qaramada midoobay ayaan ka qayb gali doonin fadhigan gaarka ah iyo fadhiyada soo socda waxaana loo sababeeyay arrintan in Soomaaliya ay ku guuldareysatay inay bixiso qaaraanka ama qoondada loogu talagalay inay baxshaan wadamada kuraasta kule golaha amniga ee qaramada midoobay. dhowr jeer oo hore ayay warbaahinta Soomaalida iyo tan caalamiga ahba ka hadashay in Soomaaliya ay weyn doonto xuquuqda codaynta iyo ka qaybgalka kulamada golaha jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa haddii aanay si degdeg ah ku bixin qoondada looga baahan yahay balse waxa arrintaasi iska dhagatiray madaxda dawladda federaalka siiba kuwa iminka xafiiska jooga oo aan ku baraarugin faa'iidada ay Soomaaliya u leedahay ka qaybgalka kulamada. waxa sidoo kale in Soomaaliya ay weydo ka qaybgalka kulamada iyo sidoo kale joogteynta arrimaha golaha amniga ay saameyn ku yeelan doontaa xiisada kala dhaxaysa wadamo ay Kenya ka mid tahay oo iminka xubno firfircoon ku leh golaha dhexdiisa kuwaasi oo olole ka dhana Soomaaliya sameyn kara inta lagu guda jiro maqnaanshiyaha danjiraha Soomaaliya ee golaha amniga ee qaramada midoobay oo laga mamnuucay inuu ka qayb galo fadhiyada soo socda ilaa inta ay Soomaaliya ka bixinayso qoondada laga doonayo. lama ogeyn dawladda federaalku ay si degdeg arrintan ugu baraarugi doonto oo ay bixin doonto qaaraanka ama qoondada uu goluhu ka rabo Soomaaliya si loogu soo celiyo xuquuqdeeda ka qaybgalka kulamada.